السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada kanaalka farshaxan. maanta waxaan idiin hayaa 5 youtuber oo aad u muhiima ay fiican tahay inaad ogaatid 5 youtuber oo youtube-ka caanka ah isla markaana ka hadla waxyaabo kala duwan ayaa waxa ay bulshada u soo bandhigaan waxyaabo nacfile ama faa'iido leh. 5 youtuber oo ugu horeeyay youtuber-ka weyn ee Cumar Inshaar ama youtube-ka magaciisu yahay ogaansho. runtii waa kanaal aad u tayo fiican, wuxuu soo geliyaa muuqaalo aqoon iyo cilmi ku dhisan oo aad u tayo wanaagsan. waana inta badan wuxuu ka hadlaa juqraafiga, nolosha iyo waxyaabo kale oo badan. fadlan gal waa kan linkigiisu adiga ayaa ogaan doona waxyaabaha uu ka hadlo. wuxuu soo geliyay ka badan 200 video, waana muuqaalo tayo leh iyo warbixino tayo leh uu bulshada u soo gudbiyo. youtuber-ka labaad waxa weeyaan youtube-ka la yiraahdo Al Nasiha. waa youtube diini ah, wuxuu soo geliyaa muxaadarooyinka diiniga ah, wacdiyada iyo tafsiirada. waxaana inta badan uu soo geliyaa muuqaalada Sheekh Mustafa Xaji Ismaaciil Haruun, daacigeena weyn ee Soomaaliyeed. isna youtube aad ka faa'iidi doontid aakhiriya adduunba. isna waa kan linkigiisu ee ha moogaanin inaad gashid. youtube-ka saddexaad waa youtube-ka Badbaada Channel. youtube-kan waxaa leh Sheekh Cumar Faaruq, waxaana uu kaga hadlaa inta badan arrimaha diinta. waana sheekh ku xeel dheer xagga sixirka iyo waxyaabahaas uu kaga sheekeeyay, iyo daawooyinka iyo aayadaha ducooyinka iyo waxyaabaha. waa youtube runtii aad ka faa'iidi doontid isaga laftiisa aakhiriya adduunba. markaa booqo, waa kan linkigiisu. youtube-ka afraad waa youtube-ka ugu qaalisan youtuberada aan ka sheekeynayna waa youtube-ka Sheekh Dirir Official Channel. waa sheekheeni weynaa Sheekh Maxamed Cumar Dirir. waa youtube-ka uu kasoo geliyo muxaadarooyinka uu qabto, wacdiyada, tafsiirka qur-aanka ee uu ka wado masjidka Rusheeye. waa youtube isaga u khaasa oo uu soo geliyo dhammaan muuqaalada laga duubay sheekhaynta laga hayo. isna youtube aad ku anfacaya oo aad ka helaysid cilmi badan oo fiqi iyo diiniba leh. youtube-ka ugu dambeeya waa youtube-ka la yiraahdo Maskax Quudiye. maskax quudiye waa inaan dhalinyaro ah sidaan ka dareemay. runtii ma garanayo meel uu joogo, laakiin wuxuu soo gudbiyaa muuqaalo aad u tayo fiican oo tayo leh. waa sida ogaansho oo kale. isna macluumaadka dunida soo gudbiya, sida waxyaabaha la yaab kale ee dunida ka dhaca, taariikhaha la yaab kale, taariikhaha sirdoonka iyo waxyaabo kale oo badan ayuu soo gudbiyaa. isna linkigiisu waa kan ee halkan baad ka geli kartaa. 5 youtuber aad iyo aad bay ku anfacayaan runtii. waana youtuber aad uga caana youtube-ka. mid walba wuxuu kusoo galaa. mid waa Maskax Quudiye, mid waa ogaansho, mid waa Sheekh Dirir Official Channel, mid waa Al Nasiha, midna waxa weeyaan Badbaada Channel oo waa Cumar Faaruq Badbaada Channel. marka 5 youtuber oo runtii aad inoo anfacaya ayaan maanta idin soo gudbinayaa. xagga dambana waxaanu ka daawan doonaa muuqaalada qaar ay soo geliyeen inagoo soo jarjarayno haaf midkiiba wax yar ka soo qaadanayna si aad u aragtaan. runtii inaga waxaa laynagaga horumaray xataa markaad aragtid tv-yadeena ma arkaysid tv war ka soo xiganaya tv Soomaaliyeed. ceeb buu u arkayaa. dunidana labada tv laga yaabo in xataa ay ka yara dhaxayso xifaaltan ama ay wax ka yara dhaxeeyaan ayaa xataa wararka iska soo xigtay. waa tv ku yaala Mareykan iyo tv ku yaala Sacuudi ayaa wararka iska soo xiganaya. tv ku yaala laba tv Sacuudiga dhexdiisa ku yaala ama laba tv ku yaala Masar dhexdeeda ayaa iska soo xiganaya warka oo ku soo qoray xigasho warkan oo aan ku soo xiganay oo kugu soo qoray warkan oo ka soo xiganay tv hebel. tv-yadeen inagu waxa laynagu dhaafay inta badan waxaanu yara moodaa in xaasidnimadu ay nagu yara badan tahay. waayo imika war ayaa tusaalaan cable ku sii daayay, warka cid kale ma hayso. tv kale iska soo qaadanaya ma sheegayo cable-kii. warkan aanu ka helay ilo xogogaal oo ka dhawaa meesha aan boornaya. runtii waxa qurux badan in xogtana la sheego meeshii laga keenay oo la ilaaliyo copyright-ka, la ilaaliyo qofka xuquuqdiisa la ilaaliyo. marka intaas ayuu barnaamijkeenu ku eegyahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ka hor inta aanan ka bixin, fadlan haddii aad ka heshay muuqaalada aan soo gudbiyo nagu soo biir. haddii aad hore noogu soo biirtayna ha moogaanin like, share iyo subscribe. mahadsanid.